aadaan idinkaga mahadcelinaa reer Shingaani sidaad ugu diyaarsan tihiin mudane gudoomiye degmada Shingaani waaxdeeda koowaad ee hood ayaan gudoomiye waaxid ka ahaa markii ugu horeyso la soo magacaabay waxaan sameynay tirkoob guud ee dadweynaha ku nool degmada Shingaani qaybta waaxda hood waaxdeeda markaas la soo magacaabay waaxda koowaad ee hood laanteeda koowaad haddii joogto Mari Cumar Gacal ha soo istaagto dariska koowaad dariska gudoomiye laameedkii waaxda koowaad farxiya iyadana ha soo istaagto waxaan tirkoob ku sameeynay waaxdaas koowaadaan laanteeda koowaadaan tirkoob ku sameeynay waaxdan waxaa jirto dariskeeda koowaad oo lagu gado muqaadaraad aan madaxa la gelin karinba waa waaxda Bateero waa laanta Siid Barkhash madaxa lama gelin karo waasna qaana reer Shingaani waxaan rabaa inaan arintaaseeti waad ogtihiin waana isna qaanaa degmooyinka qaarkiis meelahooda waa la raadiyaa laakiin degmadan waa degmo yar lana og yahay meelaha lagu gado maandooriyaha sida madbacadda qaranka oo kale madbacadda qaranka waa goobtii calaqa iyo xashiishka waaxda Bateero sidoo kale Bateero laanteeda koowaad Siid Barkhash waa sidoo kale waxaa lagu gadaa maandooriye xashiish iyo calaq waana la soo yahay inaan ka wacyigelisaan aad ka shaqaysaan wacyigelinta socoto haddii wax isbedel lagu sameeyo waa ciidamada amniga iyo maamulka gobolka Banaadir iyo degmada iskaashanayaan qofkii lagu soo qabto asoo muqaadaraadkaas gadaaya ama isticmaalaya sharciga la marsiinaa wacyigelinta maanta hooyooyinka Shingaani waxaan idinka rabnaa bari wiilashiin haddii meeshaas tagaan inaad maanta ka cishataan maanta wacyigelinaan taaganahay barina howlgalaa bilaabanayo marka waxaan rabnaa inaad wacyigelinta ballaarisaan inaad masaajidaha ka wacyigelisaan inaad guryaha hooyo walba wiilkeeda ama gabadheeda inay la sheekaysato oo wixii xun oo nafsadeeda xumaan ku tahay oo bulshada xumaan ku tahay oo ficil ahaan inay u sheegto eena ka waaniso qofkii waana diidana dawladda ayaa gacan bir ku qabanayso hawshan way soconaysaa mana la istaajin doono waxaa arkay muqaadaraad inta soo qabtay xashiish qamri oo jinaal iyadoo gacan ku sameeyay inta saldhigga u soo socday intaan yariiste inta saldhigga u soo socday gaari wax ma saaran gudoomiye yaa qaat kaala adiga sheek ciidamadii ila shaqeynayeenaba qaatayba aniga yaab niyadjabka habeenkaas aan qaad anoo xanuunsan waxaan ka soo shaqeeyay iyo wixii ugu dhacay ma loo qaadan karo taasna waxaan rabaa mudan gudoomiye inay gacan bir aan lagu wada qabto hay'adaha amniga ka shaqeynaya waxaas hadii la soo qabto in lagu maxkamadeeyo ninka soo qabtay askarigana inuu shaqadiisa waajibaadkiisa guto annagana teen inaan gudano tii hore waa dhamaatay gudoomiye Cumar Seeftiis ka sheeka baqan tahay ninka soo qabtay ninka gadaay ninka cabaayaba sharciga la marsiinaa loo kala harima hadda arki jirta wax la sii deynay maanta ka bilaawad wax la sii deynay ma jiro ninka lagu qabto soo gadaay ama cabaayo sharciga ayaa la marsiinaa waa mahadsantii reer Shingaani balanteena waa shaqo balanteena waa wacyigelin gabdhahaas ay la soo shaqeey mudan gudoomiye gabadhan hadda waa gudoomiye waaxid marka aniga ka baxay waaxda afraad loo magacaabay marka gabdhaha leetin halgamayaal waaye insha Allah gobolka Banaadir waxaan rajaynaynaa gabdho badan oo ku jiro sidaas u shaqeeyo waa gabdhaha voluntary ku shaqeeyo lacagta aan qaadanin laanta iyo dariska hadda arkaysid waa halgamayaal naftood hurayaal ah inay u dhintaan diyaar waa iska wax u qabseen ku shaqeeyo waan ku shaqeyn doonaan gabdhaha marba ma niijabi doonaan waxaynu ku shaqeynayaan si niyad ah dalkan inuu nabad noqdo kaliya oo maqalkooda uu yahay waa mahadsantihiin haddana waxaan ku soo dhaweynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir